هوي برشو وقيان وين درجات كسيامينا وقيان وين درجات كسيام عبد الرحمن موجي wuxuu ku koray oo ku barbaaray magaalada Hargeysa wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii iyagoo wax baranaya dagaaladii dalka lagu xoreynayay ku qabsadeen magaalada Hargeysa waqtigiisa in kamid ah ku soo qaatay xiriyaha qaxoontiga ee Ethiopia markii dambe la soo noqdayna kamid noqday dhalinyaradii dalka dib u dhiskiisa ka qayb qaadatay waxaan social worker noqday ama qof u adeega arrimaha ka shaqeeya arrimaha bulshada aniga 17 jira markaasoo waqtigu adkaa markaasoo qofka dhalinyarada choiceska uu haysta ama kala doorashadu ay aad u adkay qofka dhalinyarada laba choice uu haystay inuu maleeshiyaadkii dagaalamay magaalada ku biiro iyo inuu noqdo qof iska maaragtay qayla ama meel iska fadhiya ama quusta ama haajira waxaan kamid ahaa dhalinyaradii markaa aan quusan aan fadhiisan aan suudalin aan haajirin ee markaasi intay dib u fadhiisteen maxaynu u qaban karnaa dalkeena iyo dadkeena halkaas aanu markaa ka bilownay hay'adii loo jiray Hafayoko baahiyii markaa Hargeysa yaalay oo ay ugu weyneen qashinka oo runtii magaalada Hargeysa meel fara badan maadaama ay ahayd magaalo lagu dhex dagaalamay muddo aan maartay laga shaqeyn oo nadiifin dhalinyaradii markaa gabdhahooda la tagtay ee magaalada nadiifsay sidoo kalena waxa markaa jiray duruufo kale oo fara badan magaalada mujina adeeg waxbarasho waxaa jirtay caruur fara badan oo maartay darbi jiifa marka caruurtaas sidii loo ururin lahaa sidii wax loo bari lahaa dhalinyarada ka qayb qaadatay sidoo kalena waxaanu iba furnay dhalinyarada markii ugu horeysay inay xilliga adkaa oo 29kii ahaa inay dooda isugu yimaadaan in dhalinyarada markaa rajo loo abuuro rajo la tuso inay iyaga yihiin kuwa ay tahay dalkan dib u dhisaan haddii ay ku xoreeyay yihiin way dhalinyaradu waxay ku dalkan xoreeyay isla markii ay xoreynayeen dumitaan bay magaaladu way baabaaday dalkii waa dumay inay markan dambana noqdaan kuwa qoriga dhiga ee qalinka qaata ee dalka dib u dhisa Cabdikariin 27 sanadood oo noloshiisa kamid ah ayuu arrimaha horumarinta bulshada ka soo shaqeynayay waxaanu ku takhasusay oo markaa muddada faraha badan ee uu shaqeynayay uu bartay maamulka iyo maareynta mashaariicda horumarinta sida bulshooyinka loo abaabulo iyo sidoo kale bulshooyinku markay kala daataan dagaalo noocaas oo kale ay qabsadaan sida maartay dib la isugu doono waxaan shahaadada koowaad midkiisa koowaad ku haystaa xiriirka caalamiga ee diblomaasiyadda waxaan ahay soo ahaa wasiir ku-xigeenkii hore kalluumaysiga wasiir ku-xigeenkii magaranaysa qorsheynta qaranka 7 sano ugu dambeeyay waxaan hogaaminayay ololaha ciribtirka qabyaaladda oo runtii ahaa barnaamij weyn oo dadka reer Somaliland iyo inta af Soomaaliya ku hadashay lagu wacyigelinayay qabyaaladda afaysay qof kasta oo Soomaaliya runtiina dad fara badan baan u gaadhnay dhalinyaro fara badan baan sidii caqabad qabyaaladda ugu tahay noloshooda inay helaan maamul suuban midnimada dhexdooda ayaan runtii kala hadalnay barnaamijka qiimaha lahaa ayaan 7 sano ugu dambeeyay gacanta ku hayay imaka oo la soo gaaray xilligana oo xilligii aan go'aansaday bishii August 4 ayaan go'aan ku gaaray inaan soo sharaxo golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa magaalada Hargeysa oo aan runtii magaalo aan jecelahay ku soo koray baahiyaha yaala idamqeen marka runtii anigoo ku faraxsan oo isla waxbaad ka qaban karaysa mashaakilaadka ayaan bishii August ku dhawaaqay inaan musharax noqdo oo aan istaago golaha deegaanka caasimadda Hargeysa codka ugu rida